qof cunay kalluunka xilwa ama cabay caanaha xilway xaajadiisu toostaa koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda coffee baby coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa wuxuu yidhi how ridooxaan ribiraysaaney karoontoho reejay qabta karoontoho reejay qabta cabdullow masmiyaa ku qanina aad waxay taa maya dawaca ku aragtay cijaysatay cabdullow mahmaayada waad seegtaye neef gowracanigeeda kama waabtay ahayd naw war mahmaahda waa ku dheeseene waxa weeyaan wan weyni ilaa la gowraco indhihii shicirka ma arkaan war mahmaadaniinku kudheelen haan afyaguuyon haan kale aragaasu hunfug matiraaso dheere badaadan isaago wadnahaantaanaan ku nacay berigana hunfug aad ku soo darta war neef gowracangeeda kama wabtaan ku soo xasuustaye xalay meelo badan baa cirka laskaga soo dhacay cajiib shabeellaha hoose jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaa shabaab cirka dig looga soo yidhi horta wuxuu shabaab ma yihiin cirka ha looga soo dhaca maahine dhulkuna ha ku fugto tii ugu darnayd saldhiga ay ku lahaayeen mubaarak ayay ka dhacday markii cirka looga soo dhacay ayaa haddana waxaa ku sii qarxay hubkoodii iyo goorboqarxyo u sii diyaarsanay abkayfaqa buraalaa ku soo degaye ilmo yaryaroo meesha ay ku tababarayeen wixii ay diyaarsadeenaa sii martay wareedhahaya shabaabkii 100 sano ka hor jiray ee sayid maxamed cabdilla xasan ayaa diyaarada weerareen ingiriisku lahaa wuu gebiye marka wuxuu yidhi coomaadi duulaaya bay cadan ka keeneen cirkii iyo dhulkiibaa isqabadsaday cararaqdoodii aduguba caqlaad leedahay carar maxaa dhaamu yidhi maalintaasaana u dambayso waa laga nasto waa ka iimay u qaxay wareedha shabaabka aad sheegayso sayidku midhaannimo naftooda rabay ahaayeene kuwaanu naftooda ma rabaan 100 sano ka hor gabay ahaana ha noo sheegine 100 sano kadib shabaab waxay ku gabyeen dadka yaga dilkiisii haddii cadowgu noo diiday duqaymihii shisheeyaha haddii nala ku soo daayey afka duubanna iyo indhaha dah ku xidhannaaba adiguba dan baad leedahay dirir maxaa dhaama aryaadaha waxaad maqli jira katiitow moonya calow riglow korisuuqaad dhulkiisuu dey haddaad jaabtaana iimaw abeesa fuurhaa ku gaashe yur weligay ma maqal maanta ka hor war ninkan waxaa ka dhex hadlaya majin baa bini'aadan sidaan uma hadlee warnigow ninku wuxuu ku yidhi adigaan fahmine ewalxaad soo jerihaysay jinni guuraaya ku joogse ewalxaad soo jerihaysay jinni guuraaya ku joogse ayayday jirtay xaraaray dhihi jirta yaa macaan ka rabahe war ninku haddaad jabtay iimaa wuu ku yidhi marka u tag haddaad socon karta adoo jaban war caamirba waa salleelle ana haatan caymadii buu lahaa kuuka daran o gobiy widaay anugu jilla hadlay maa waraqaanee waxaan idin dhihi lahaa muhdiga iyo liqayaasha malabsiga ku fogaadee cidna aanu miciinine calooshooda ka miista haddaan miiska dulkeenno taas waa mudankoodii olooladii eedan aragdi oloola wiwiinaa warnimaya jinni iyo jacayl riwaayad la soo dhaafay ahayd kan cusub dhegaysta haa isi gabar jacayl hayo ayaa sabtiga waxay facebook soo qortay haddaan jilayaa jacaylo haddaan jawi caashaq galay axaddiina waxay tidhi xasilay goortaan ku helay isniintana waxay tidhi ku bartay oo kaa ilbaxay durbaba talaadadiiyaa ka daranoo waxay tidhi talaadadiiyaa ka daranoo waxay tidhi tagtay ayaa ku tebay anaa jimcuhu jawaabaya jacaylka joojiyaan leehay war waxaas ma ahane jacaylkii u daraa maantaan reediyo kulmiga ka dhegaysta gabar iyo wiilaa warka akhrinayay wiilkii wuxuu yidhi abbaaye macaan warkii ma dhammaaday gabadhiina waxay ugu jawaabtay abboowe macaane ma dhammaane warkii dibaddaa dhiman war meeshaas war ma aaline jacaylaa lagu jilaayo dhiidhiin ah war jacaylka gabal laab ee odhaniska sheegay kan hawidi limarsiyawna may haay casriga soo baxay waa arro aryaadaha madaxweynaha hirshabeelle mastar waare waagi la doorta wuxuu baarlamaanka ka codsaday inuu wasiirrada bannaanka ka keeno oo uusan hal xildhibaan wasiirka dhigaynin waana ka yeeleen muggaas baarlamaanku muggaanowse tii ugu darreed dhigay wasiirradii ku-xigeennadoori wasiiru dawlayaashii kurti
digtoor xildhibaanadyow ka dhiga war xeeladaas ma taqaanid waa xeelad mooshinka looga hortago waran iyo gaashaanaana la yidhaahdaa dawladda weynuuna ka barta yaa waranya gaashaan ununkaa ku shiri jirnaa dawladda weyn maxaa u geeya abdilo usan ka shiraasan la inoo iska difaaco la bardi wal mooshiidii war dawladda nabad iyo nolol la yiraahay goorma waran iyo gaashaan loo bixiyay war ma haysaana Puntland wafdi tira badan baa ku qulqulaya Cabdiramaan Cabdi baa markii ugu horeysa baxay oo isla hayaan lagu reebin inta laga tashado tigidkuna waa qaaliyoobaa la yiri lagu baxayaa $400 buu sii maraya marka dadka halkaas bay u qulqulayaan diyaaraduna lacag aqli ka fooqa bay ka sameynayaan aryaa anay iga qaadi lahaayeen waxa hore loo yiri suusmaalow yaalow ka beegma wariya caleema saarka madaxweyne Dani waa siyaasadaysan yahay sida loo kala ordayaana ka arkaa war haddaan Soomaaliland nahay haddaan ka qayb galno caleema saarka Puntland اعتراف بكويلنا ورنمي يوم يسين لها إلى مساركي مدوين لفت جران كونفر قلبت كدياي سدوم ملان قروران على مسارك مدوين الدني أبوت لان كديه دونه ولا سدوم محافظ يوني معارض لان قروراو ما يتمر لفاك جرتوا ورمدحويني سومالي ستيت مصطفى أكشر إساقا إيو رئيس الوزراء إثيوبيا خلافة أودحيا ليير إساقا عريسان بو أدس كسول لابتي باليير صدح وزيرنا مركو يندعيلكي وكقاضي مركو وحانو مالينيا فدرالك إثيوبيا أمو كينو كلا نقضا ورمدحنا إثيوبيا إيو كوين حرير وين باكا دحيو إلا اسكو دارتي بالغيابا أرهرا الليل الدقر انت أهوال اسكو دارتا أريانا كينيا وحي ترهب كنا لكويرر مقدشان لغا سو ديباي لا تليها مدحوينهuna wuxuu yiri shabaab wax uma dhiibnee Kenya warkay sheegayso iska fiiriso warnimada la taliyaha madaxweynuhu warka muu iska hubsha Muqdisho waa la wada joogaa Kenya Soomaaliya oo naqabateynta hubku inay saarantaa soo mooga waa maxay hubka laga soo dhibay sheegaysa haki amunga waaway kuna waazimi bana maana u baana ileeya aryaa waxa tiriba lagu yiri aryaa aniga waa yaabanahay niman daacish oo Soomaali u soo socda Mareykanka lagu qabtaa la yiri war abwaan faarax leena wuxuu yiri jahaaz ruuxa naga doonaya Yurub ka soo duulay dambu leeyahay masaaqalu dila waay aryaa faaraxan ma hayna waadan maqal sida faarax suuriye indhaha kabad ma saarteene kartatooyo waa ridi lahay kicisa baaruud war shirkad magaalada caduda qashin ka qaada ayaa shir jiraa'id magaalada ku dhax qabatay waxay tiri cidii qashinkeeda cid kale ku darta tilaaban ka qaadayna marka qashin laba qoys la isku madari karay waa yaab weligay qashan laga ganacsaayo waa ii kow kanu anna waa ii kow qashin ka ilaali ebidkay war qashinka qoryaad ku ilaalin jirtay lama qaadi kara dhigi jirtay dadka beenta ka daay arwar ma haysiina safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya wuxuu yiri safiirkii aniga iga horeeyay loo magacaabay ergaga dhexdhexaadinta Soomaaliya iyo Somaliland war Soomaaliya iyo Somaliland ayaga Soomaaliya ma wada hadli waayeen goormay af Turkiga barteen barheesku sidaas ma ahana Soomaaliya Soomaali baa la weey naga tagsun hal lagu qasay cirka looga soo dhacaaba lagu leeyahay war yaa qaramada midoobe kismaahay ma tagi kartaa liin aryaa qashamada midoobe waa la dhaqaajiye yaa dhigi kara war xitaa midoobe Yurub ma bixi karaan baa la yiri tijaabo tagi karaan war yaa xalalada ya Soomaaliya xukunta waxba ka dhiman nadaafadaada ilaa aad isticmaasho oomada iyo saabuunta B29 xubintii kalamaan iyo fariintii ka dambeysay waxay qayb ka ahayn barnaamijkii xog wareysi caawintaas ayaan kusoo gabagabeynaya tan intaan barnaamijka lamida ku kulmi doona nabadgelyo